بيت من بيوت الله إلهي سبحانه وتعالى قرآن يسوع إليه وأما بنعمة ربك فحدث. أنت كلمة أن كلمة مهر جديدة يا إدارة أو ما أنت وصل رويسي مسجد السلام مقالة كيتشنر ومركي سدحات وأنا إيمان إنه يؤاد المسيحيين community waxbay u haayaan waxaan idin dardaarmayaa inaad isku xirtaan oo isku xirnaataan dhammaantiin sida ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisu ku sheegay wactasimuu bixabliillaahi jamiican walaa tafaraquu yaa la kala tegin. sida horey loo cilaamiyey kelimada oo igu soo qoray waxaa waaye familka problem familada ama usrooyinka waxyaalaha burburiyo iyo mowduucayga wuxuu ku saabsanaan doonaa familada hadday noqon lahayd xagga furiinka, hadday noqon lahayd xagga guurka, hadday noqon lahayd fasakha. muxaadaradeeda waxaa waaye maanta muxaadaro oo caam waaye mowduuc oo macnaha oo si gooni aan usoo qaadanaya ma laha meel kasta wax yaraan kasoo qaadanaya waana insha allah waa soo koobi doonaa sheekh Abu Salih idin dambe doona seen wixii dardaarana sheekh Asad uu soo xiri doona insha Allah. kelimada markaan soo laabto usra horta maxaa usra la dhahaa? usra quraanka waxaad arkaysaa markuu usra uu leeyahay quraanka wuxuu leeyahay ahl inuu isticmaala quraanka waxaad arkaysaa wa amur ahlaka bis-salaat ehelkaaga far salaada ahl marka usra waxay ka bilaabataa marka guriga hadaa maanta adiga aad guursatid oo caruur aad dhashid adigna madaxweynaha tahay dadkiina marka waxaa waay usra waay marka waa xukuumad yar waay oo guriga joogto. xukuumaddaas marka ilaahay qawaaniin ayuu u dejiyey. anaga waxaa oo kasoo farcaneed abuuna aadam calayhi salaam. nabi aadam keligiis ayuu ahaa markii oo ilaahay uu abuuray oo gacantiis uu ku abuuray ilaahay wuxuu u sameeyey xaas xawa. ilaahay markuu leeyahay wayaa aadam uskun anta wa zawjuka aljanna wa kula minha uskun waa ficil amar waay deg waay degaa waay meeshaas deg. kadib nabi aadam waxaa loo sameeyey famila loo sameeyey xaasa loo sameeyey tarak meeshaas ayuu kasoo bilaabay. nabigeena calayhi salaatu wasalaam asagana waa lala hadlay walaqad arsalnaa rusulan min qablik wajacalnaa lahum azwaajan wa dhurriya. ilaahay wuxuu leeyahay walaqad arsalnaa waxaan soo dirnay nabi maxamed lala hadlay rusulan min qablik rusul oo adinkaa horeeyaan soo dirnay allah wajacalnaa lahum waxaan u yeelay azwaajan xaasas iyo wadhurriya. أنبياء أردن فاميلي أهاي أقول أبنو نبي زكريا فانا السلطان حوغا وحاوى نلقي إيو حوغا عروض ويكسوطان. إلهي سبحانه وتعالى ينبري قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. نبي عروضي أقول إلهي يوم وأجي داوي عروض لا يسوع يرثني ويرث من آل يعقوب وجعل ربي رضيا. إلهي يمتلك عدان كبيرته دين تاوح وكركارا يمنها إلهي وعرور إلهي مركا إلهي وبري إلهي وأسر جواب معالا لاهي يا زكريا مجلس الرجوع فيه يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. نبي حي مركا أنبياء ساسي وصعب marka guurka marka waxaa la rabaa nabigeena wuxuu amray in la isku baraarujiyo sida xadiidkii ibn Mas'ud fi sahih. nabigeena wuxuu yiri xadiidkii ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya ma'shar ash-shabab nabi bal yaradu Allah ma wuxuu leeyahay man istada'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj qofkii oo awoodo ha guursado Allah فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم.
mujeda guurka marka waxa waaye koo waxa la rabaa hal guursada Allah ahkaam badan u leeyahay sida marka ahkaamta u laabano guurka mar waajib ayuu noqonayaa mar makruuh ayuu noqonayaa mar wuxuu noqonayaa ibaax shantii oo ku soconaya oo culimada ay u dajiyeen qofku markuu awoodo ha guursada Allah qofkii aan haysanin wax maxaa la sameeyaa ha soomo وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله dadkii wax aan haysanin hal doorsanaada fiiri mar guursaar ulaahay hadda doorsanaan waxaa la rabaa marka guurkii markii fadligiis laga soo sheekay waa nusuusta waa fadli badan tahay wax oo fadhigaan aan kusoo koobi kara ma aha aayadka waxaa kale waxaa kusoo khatimaya suurat Rum wa min aayaatihi guurku wuxuu ka mid yahay aayada ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها في السكن سكن وموجد يقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهن في القرآن وحو استعمال اللباس مركا نقع وضنه مرة حواي ضبوبكم نقعنا يا مرة عورضا وأسترنا مرة وحواي وأحرنا مركا فضل يقول مركا لغا صوبحي مركا محالنا هاي يا لجوش أنت واحد لقى بالعوض اختيار الزوجة نبي نوشي عليه الصلاة والسلام وحيالها أو جوركا أو مركو هرب وكم برا وحكمنا مركي هرب السفري عن مرفي عن كم جوسني محارب الله أوف دين لجوسال الله أوف كدود دين ليه يعني أو إلهي أو يقانو وحكستو بري وحواي واسس على لسان أوف مركي هرب حارب الله ما تقانا waxaa la rabaa qof diin leh in la guursado sababtoo ah haddii nabigeena wuxuu leeyahay gabdhaha waxaa loo guursadaa afar wali jamaaliya wali diiniya wali nasabiya maxaa laga soo reebay afar bidaati diini taribat yadak tan diinta la guursaa la dhahay waxyaalaha beriyaha mashaakilada oo guryaha burburinaya markii hore waxaa waaye banaankaasa la isku arkay waa la isguursaday guryaha mashaakilkaas marka waxaa keenay إن مرك ربا لسرعة يا دين يقان إلى النبي المعول إذا جاءكم من ترضون الدين أو خلقه فزوجوه هدو إلي إمامه قف طبيعات إيو أخلاق إيو الدين لو قول يا الله وأمر الله هدي أنا قولني في النار الرئيس مركا وحانا ربا قولك إلا فضله ذاتك قبلها بالي ذاتك أولياء الأمور وحامود الدار مينا لأن يرادا قولك هلو فضله يا ربين ذاتك محمد يستعب